سوى بو عدو قاعد كوفيري وقول إنه سمح لك بدري رد قال عدو قاعد عدو قاموس فرحت موجي سعدو قاعد إمرو وسوهيته مش هذا عدو أوكي أياك الشقين كره إلهي قرب وجيسو شنتي سوقت نتكو وحنكوه با إن تقول يسويس عدو قنا وهالكاس قاعد هاري أقاسمها واحد إسبورتيكا dhammaan guddiga fulinta ee guddiga Olympiga Soomaaliyeed marti sharafta xildhibaanada dhammaan madaxda kale ka soo qayb gashay xafladda furitaanka tartanka horyaalka 26aad ee kubadda koleyga madaxda naadiyada kooxaha iyo naadiyadaba madaxda kooxaha garsoorayaasha tababarayaasha dhammaan dadweynaha galabta sida xiisaha leh uga soo qayb galay furitaanka tartankan waxaan idinku salaamayaa anoo ku hadlaya magaca guddiga Olympiga Soomaaliyeed salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh سعد الرجل وزارة كحجان iyo wasiirada kaleeto anoo ku hadlaya magaca guddiga Olympiga Soomaaliyeed garoonka aan joogno galabta waa garoonkii hooyada kubadda koleyga ee Luchino amba 22 Oktoobar loo yaqiinay waan dareemi karaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka gaashaandhigga inuu asagoo dhalin yar oo halkan imaan jiray oo ciyaarta kubadda koleyga fiirsan jiray aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaare ku-xigeen muddo 2 sano ah garoonkan ciyaaro laguma qaban waana garoonkii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gudaha iyo dibaddaba ay ka daawan jireen ciyaarta basketballka aan heer sare ka gaarnay gabdhaha iyo wiilalba waxaan ku faraxsanahay galabta mar kale idinkoo goobjoog ka ah in galabta lagu furo tartanka horyaalka 26aad ee kubadda koleyga ra'iisul wasaare ku xigeen garoomada waaweyn ee magaalada Muqdisho amba Soomaaliya ay leedahay waxa ka mid ah garoonka weyn ee istaadiga Muqdisho ee 60,000 qofood qaada garoonka istaadiga Banaadir garoonka hadda aan joogno garoonka tenniska hase yeeshee anoo jecleen inaan dhinaca mutaqaana amniga aan dhex galo haddana garoonka weyn ee istaadiga Muqdisho xaaladda oo saacadan ku sugan yahay waa ka warqabtaa adigoo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka isla markaana ah wasiirka gaashaandhigga marka waqtiga oo gaaban awgiis waxaan jecelahay inaan ka faa'iideysto waxaan rabaa inaan u sheego dadka gudaha jooga iyo dibaddaba oo la daalaan dhacay inay wax dumiyaan maahane inay wax dhisaan rabin had iyo jeer waxaan ka maqalnaa in ay yiraahdaan wasaaradda iyo guddiga Olombikadu ma wada shaqeeyaan guddiga Olombikadu wasaaradda lama shaqeeyo dawladda lama shaqeeyo hadda waa dad 30 sano wadanka ka maqnaa hadda ra'iisul wasaare ku-xigeenku hadduu diaspora yahay inaga raalahaado waxaan rabnaa inaan runta sheegno annaga dawlad ku nool aan nahay haddana isboortiga ciyaartooydu waa dawlad ku nool xiriiradu waa dawlad ku nool galabtan hadda waxaa idin cad in ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ahna wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasiirkii wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo dhalinyarada ay goobjoog halka ka yihiin waxaa intaas ku caddeeyaynaa inay wada shaqeynaan ka dhaxayso haddee waxa waaye dadka daalanka la dhacay ee 30 sano dalka ka maqan waddanka ha yimaadiino isboortigoodana ha dhisaano anoo ka faa'iidaysanayo munaasabaddan waxaan jeclahay warar badan oo isdhex marayay ama wargeysyada aan ku arkaynay oo lagu sheegayo wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo dhalinyarada iyo isboortiga inuu mataqaana halaaluush ka qaatay mataqaana isboortiga gaari haleygado waxyaabo noocaasa anoo ku hadlaya magaca guddiga Olympiga Soomaaliyeed waxaasi waa fadhi ku dirin waa been waxba kama jiraan waxa way guddiga Olympiga Soomaaliyeed wasiirku waxa uu la shaqeeyaa si habsami ah si Soomaalinimo leh si mataqaana daacad ah waa nin dhalinyaro ah waxyaabahaas lagu sheegayna guddiga Olympiga Soomaaliyeed bari oo ka yahay mana la socdo mana oga marka waxaan u sheegayaa warbaahinta oo mataqaana fadhi ku darriyada u badan inay waxyaabahaas ka waantoobaan inay ka leexdaan annaga waxaan nahay dad Soomaaliyeed bulshadooda u shaqeynayo sidaa darteed waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo inay warbaahintu ay ka leexato waxyaabaha maartan mas'uuliyiinta qaranka lagu aafeeyayo intaa kadib waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo agaasimaha guud wasaaradda shaqada arrimaha bulshada dhalinyarada iyo isboortiga
mudane aweys waa maasantiin